xogayaha maaliyadda xisbiga isbeddeldoonka wadani Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa maanta si ballaaran loogu soo dhaweeyay deegaanka Gambadhe ee gobolka Sool waxaana xogayaha safarkaasi ku weelinayay xildhibaanada golaha deegaanka degmada Laascaanood ee xisbiga isbeddeldoonka wadani iyo sidoo kale mas'uuliyiinta xisbiga ee gobolka Sool waxaana soo dhaweynta xogayaha maaliyadda xisbiga wadani Cabdirasaaq Khaliif Axmed ka qayb qaadanayay kumanaan kamida taageerayaasha xisbiga isbeddeldoonka wadani odayaal waxgarad haween dhammaan bulshooyinka reer Gambadhe saaka uma aysan kala hadhin soo dhaweynta xogayaha maaliyadda xisbiga isbeddeldoonka wadani Cabdirasaaq Khaliif Axmed waxayna halkaasi kumanaankii dadweynaha iskugu yimid ay ka soo jeediyeen hadal ay ku soo dhaweynayeen xogayaha maaliyadda xisbiga isbeddeldoonka wadani Cabdirasaaq Khaliif Axmed iyagoo sheegay inaysan wax qabada uusan u qaban xisbiga talada haya kulmiye iyagoo sheegay in codkooda iyo cududooda ay la garab taagan yihiin xisbiga isbeddeldoonka wadani soo dhawaada mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba kula soo dhawaada deegaankiinni iyo dadkiinni ilaa iyo maanta oo dhan bacadka idinkaa la idiin tumayaa si ballaaran baanu idiin soo dhaweynaynaa imaantinkiina waa ku faraxsannahay aad iyo aad baanu idiin soo dhaweynaynaa taageero cudud iyo naf iyo maal balana waa idin dhinac taagannahay ku soo dhawaada anigu xisbiga weligay waa ahaa Cabdirasaaqani dhinac taagan weligay waa isahayn oo xisbigaas baanu idiin soo dhaweynaynaa aad baanu idinku faraxsannahay aad baan maxaan ku idhaahdaa aad iyo aad baanu idinku kalsoonahay waxaanu soo dhaweynaynaa xisbiga maanta martida noogu ah degmada Gambadhe Cabdirasaaq Khaliif iyo waftida kale ee uu hogaaminayo waa u mahad celinaynaa waana soo dhaweynaynaa dugsigeedu aad buu dayacan dugsiga waxbarashadu maadku la mid saldhig bilays male ciidan amni male wasiirada iyo waftida noo timid ka timid magaalada Laascaanood waa soo dhaweynaynaa xisbiga wadani baan soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa waan taageersanahay cudurka gacanba waan siinaynaa codkayagana waa siinaynaa waxaan leenahay ku soo dhawow degmada Gambadhe hore waxa loo yeey Gambadhe kulmiye haysta laakiin maanta waad aragtaa indhiina idin macalina wax kulmiye leeyahay ka shaqeeya ma jiraan horuu degmada ula haray wax qabad hore wax allaay wax inta 7 sano wax qabada kama naaray waxaan u mahad celinayaa marka hore shacabka reer Gambadhe sidan diiran ficil kale ee noo soo dhaweyseen soo dhaweynayna waftida noogu timi magaalada Gambadhe waxaanu nahay waxaan taageersanahay xisbiga wadani waxaanu rajayn doonaa xalitaanka kulmiye inaad gacantiina ku aarsan doontaan oo aad wadani dooran doontaan wadana ay ballan qaadayso haday soo baxdo meesha ugu horeysa wax laga qabtay inay Gambadhe noqon doonto waxaan ku idhaahdaa waa aad baan ugu mahad celinaynaa cuqaasha iyo odayaasha garabka haweenka sida fiican aad noo soo dhaweyseen aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa hadday garteen reer Gambadhe ayaamahan degmooyinkii kale iyo gobolkuba waa israaceen xisbiga wadani baa la guddoonsaday in la raaco iyo hawdba gabagabadii waxa halkaasi khudbad dheer ka soo jeediyay xogayaha maaliyadda xisbiga wadani isagoo u mahadnaqay soo dhaweynta ballaaran ay bulshada reer Gambadhe u sameeyeen sidoo kalena wax qabad dhab u ballan qaaday deegaankaasi salaan kadib waa idin mahadnaqayaa aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa soo dhaweynta aad noo samayseen waa idinka mahadnaqaynaa waxaan leeyahay aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin waxaan kaloo idinka mahadnaqaynaa taageerada aad noo muujiseen aad xisbiga wadani u muujiseenna aad iyo aad baan idinka mahadnaqayaa waxaan filayaa faana ha noqotee codka halkan waxaan isleeyahay inagula tartami maayo ragaanu waa jiraan rag aanu u simannahay oo ordayo halkan ordaya oo xisbiyada kale ka ordaya waa jiraan laakiin waxaan isleeyahay reer Gambadhe codkooda cidina kugula tartami mayso waa tirsanayaa ninkii igula tirsada tartamaana waxaan isleeyahay wuu ku hafan doonaayo meesha iyada waxba ka heli maayo insha Allah baan rajaynayaa ama ha soo noqnoqdeen oo dad nolosha ka dhacay ha soo direen oo shaqadoodii garan waayay iyo hawlihii loo igmaday oo marka hore ay gaf ku ahayd in bulshada loo soo magacaabo nolosha ka dhacay ama cid kale ha timaado waxa weeye halka kan codkeeda ana iska leh waa Maxamuud Aadan Askar Maxamuud Guray Somali News TV Gambadhe.